السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا يا وناقا بدن عافيماد قبا ayaan idiin rajaynayaa farxad ayaan idiin rajaynayaa nolol wanaagsan ayaan idiin rajaynayaa muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkan dhalinyarta ee xaaslaha ayaynu la talin doonaa inta Ilaahay naga waafajiyo. Wuxuu yiri waxaan guursaday 8 bilood ka hor wali xaaskaygu waa bikro aafada foosha xun ayaan samayn jiray buu yiri intaanan guursan ka hor tamar iyo awood meesha kuma hayo wallaahi ciil baa dilay imika inaan iska furaayeen doonayaa laakiin iyada ayaa jecel mar hore ayaan furi lahaaye maxaan sameeyaa ayuu soo weydiiyay. ninkaas ayaynu insha Allah aynu qoraalkiisa inta tala bixinta aynu ka siin doonaa isaga iyo inta bahwadaagta la ee arinta ka cabanaya. marka kooban waxaynu walaalkan xasuusinaynaa muuqaalo aad u badan baynu ka diyaarinay guurka habeyntiisa iyo isku dubadridka guurka dadka ku dhacay aafada foosha xun xilliga ay guursanayaan inay qorshe fiican ay u baahan yihiin inay ka taxadar ay u baahan yihiin si fashilaan u iman ciil kaambiyaan u iman hadhowta murugadu aanay u badnaanin. taana qorshaha ugu fiican waxa uu noqday sida hore aynu iskugu tilmaamnay inaan haddii qofku aafada uu ku dhacay oo uu dambaabay oo qaladka weyn u sameeyay in marka uu guursanayo haddii uu joojiyay aanu hor u guursan haddii uu wadana guurkiisaas macna sida u sii ridan inuu fashilmayo isaguba way sog yahay inay dhibaato ka hor imanaysa isaguba way sog yahay in guurkaas aanu sii jiraynin oo aan la isku sii waaraynin isba waa dareemaya qof aan tamar lahayn oo aan awood lahayn oo aan raganimo lahayn qofka dumar u timi bariis iyo cunto uma soo doonan ubad bay raadinaysaa waxay doonaysaa qof ay nolosha la qaadato qof xaq ay ku leedahay Ilaahay ugu abuuray ay kaasho kama helayso haddii qofku qof sida isku burburiyay oo isku shaxaaday oo sida isku rifay uu yahay. hadaba ninkan waxaynu kula talinaynaa marka kooban waxyaabaha inta badan qoomamada keena marka la xalinayo ma wanaagsana shayadii dhacay in dib lagu laabto si qoomamada iyo ciilkaambiga looga baxo. hadaba wixii dhacay way dhaceen let's pass be there dibna ha eegin ee bartaa ku dhaaf. waxaynu kula talinaynaa walaalkan in uu sameeyo nasasho isagoo xaaskiisa la jooga inaanu wax kulana haba yaraatay aanu samayn inuu isnafaqeeyo xaaladda xaaskana uu sheego xaaladiisu sida ay tahay. dabcan waa ay dareentay oo waynu dareemi karnaa way ogaatay isagaba tamartiisu sida ay tahay inuu markaa u sheego inuu ishabaynayo oo raganimadiisa hagaajinayo oo awoodiisa u fiicnaysiinayo. kadib marka uu isnafaqeeyo nafaqo fiican buu cuni doonaa kulanka gogasha ee xaaskana waa uu iska joojinayaa muddo bilaa. arrintaas waxa dhalanaysa awood waxa dhalanaysa xubinkiisii taranku inuu fiicnaado awoodiisii raganimaduna inay fiicnaato. rajada 80% waxa lagu rajo weyn yahay haddii uu ninku caafimaad qabo oo muddo dhowr bilood 2 bilood 3 bilood uu isnafaqeeyo inuu xaaskiisa bigra jabin karo oo markaas xaaladaas uu samayn karo ubadiyo awlaad haddii Ilaahay kasago gamcaha Ilaahay kasakowna inuu samayn karo oo manidiisu ugxanta haweeneyda ay qarxin karaan inuu sidaas sameeyo ayaynu kula talinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.